bal hadda iminkana marti kaaga nahay hees kale oo heesihii alxaantooda uu lahaa cabdilaahi qarshi adaa soo qabsan doona magaceeda iyo sida aad u qaadaysaba taasaan iminkana marti kaaga nahay halkan waxaa ila jooga mugteen abwaan weyn oo macruufa maxamed gujis wada taqaanin markaa taaysan ku sii daynaya masbuushoon baan ka dhigaa mise hees kale أحمد آد بدو ما هتصنتهاي أنا جو آد مودي إيموشنال اللي نيجي لقيه هستي هلا قاعد عويس ريدي عبد الله بن حسين أو فارح يلا حن كي قيمة بدنا عويس يقول عبد الله قرش يسميه كعنت هذا مركز نكون نقضه واحد حسوسنا يا سيدي عبد الله قرش وبلا بتري ميوزك هذه يا دار عاد فضي وامر إما كان واحد شعره أنا جو كل برنامج قريب قادم دور إن هذا كده إذا يسكت شو بنينا ترحس هجاج هدان حاجي يروح حصوصته يستاس هو بيموت مدينة يرى إلا بيه مركز كده يدور هنا joogo kale xuseen jaamac xaajiga la ilaahay xaaji gujis xaajigu waa hal abuur xaajigu waa jilaa xaajigu waa mulaxin muddo badan ku soo jiray fanka maadaama nin mulaxina tahay ay dadka kale siyaabo badan cabdilaahi u eegi karaan ama xagga ereyada ama si kale u qiimeyn karaan markaad alxaantii cabdilaahi eegto cabdilaahi wuu heesi jiray cabdilaahi music u tugi jiray ereyuu lahaa laakiin tii qaybtii ugu badneed ee noloshiisa ولا مروكو بتشرو إنه الحان عرنتها عبد الله وقاطي هذا السلاء وابتري الحان تي عبد الله أما صمد أما بعد السعد أي اللي تلمان حاد سيدو قيمين له الحان تي عبد الله والسؤال هذا قيمة بدوي عبد الله سمين تعبت الحين تيسو مركا عن تنتا وقلقه سيدا الدد كان إمي كفانك كتلا أولا حمان واحد إذا سيدا عبد الله وحا أولا حين تلقاب وين waxa uu marxaati iga yahay saaxiibka Axmed Cali Cabdilaahi ereyga marka uu la ximayo waxaad moodi jirtay cod erey waliba codka uu u eg yahay inuu heli jiray sababta oo ah waxaan imika arkaa amba dhawaan soo baxday biyuud caawa la sameeyo Britana la ximo laxanka Cabdilaahi hawo gooni ah codka iyo midhaha isu eg ayuu sameyn jiray haddii ay yihiin caasha iyo hadday yihiin wadani erey waliba cod uu ku soo baxaa buu u leeximi jiray isagoo aan ku degdegin waxaan xasuustaa marka aanu fariisano aqalka
waxaa la fadhiisan jiray gelinka dambe qayilaad baa la bilaabi jiray ilaa afarta wixii ka horreeya sheekada wuu noo ogolaan jiray cabdillaahi in la sheekaysto in la buuqo hadday cagtu go'do oy galab noqoto wuxuu odhan jiray isla markaa alla yarxamo isla markaa ayuu halaysu lahaan jiray waxaynu u baahanay in hawo la galaayo fal laga sheekeeyo ereyga markuu bilaabo waraaq buu ku qori jiray dabeetana wuu sidii wax daawanayuu isoo dhigi jiray markaa lama maqli jirin cabdillaahi la talxiintiisa inuu ku heeso isaga iyo mayuusiga kabanka oo keliya marna wuu dhigi jiray marna wuu qaadan jiray lama hadli jirin saddex casho ka dambe oo kale ayuu noo yeedhi jiray wuxuu odhan jiray doraato midhihii halkaa ku qornaa codkii aanu helay bilowgiisii baan idin tusaya lama sheekaysan kari jirin sababtoo ah ereygii iyo codkuu saari jiray baa isu egaa si ay kuugu sameeyaan qiiro badan ay kuugu dhalato cabdillaahi waxay ahayd wax gooniya talxiintiisu heestan isku shuban ee imika axmed cali qaadiye ugu dambaysay waxaan xasuustaa in 7 maalmood oo isku xiga uu nooga sheekayn jiray siday codkeedu u imanayo 4 habeen oo kala duwan buu midba xubin samaynayo marka cabdillaahi talxiintiisu waxay talxiin ka gooni atan oo kale imika lagu laximo waxay ahayd wax hawaayada oo ku dhasha cabdi yuusuf ducaale waxaan ku soo koobayaa cabdillaahi talxiintu lahaa waxaan ka xasuusnahay nugul oo kale iyo isku shuban iyo heestii laac la odhan jiray yacni anigu aad iyo aad bay iigu abuuraysaa imika dhibaatooyin badan baan ka filgaraynaya wixii aan ka dhaxlay laac markaad soo qaadato oo cabdillaahi lahaa sidaa uu xaajigu sheegayo laac 3 siyaabood baa af soomaaliga loo macnayn karaayo wax la laacay oo la mariyey oo caaniyo biyo kala wax la cabay wax laacayo meel ka muuqdo uu noqdaa laakiin tii marka laxanka laac la qaadayo halka hoose ee laga soo bilaabayo halka sare la geenayo ayaa ku muujinaysa in wax la hiigsanayo ama la tiigsanayo marka uu xaajigu leeyahay wuxuu u ekaysiin jiray laac baa tusaale wanaagsan u noqonaysa